أرضي بانا هيو وبحي ودن كان هيو أرضي بانا هيو أرضي بانا هيو وبحي ودن كان هيو وحانو أرضيا ورديا دكسي ذوبادا وحانو أرضيا ورديا دكسي ذوبادا إن أنا فكر بصدق الكيجا أنفعي ذلكي لا يمدي الله يو يقرقر آمين آمين إله يو يقرقر آمين آمين ذلكي لا يمدي الله يو يقرقر آمين آمين إله يو يقرقر آمين آمين وعن daawadayaal meel kasta dunida dacaladeeda ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah aan ku eegayno dafcaddii afraad oo ka qalin jabisay iskuulka Sheekh Axmed Garaar ee degmada Waaciye ee gobolka Karkaar. Munaasabadan oo lagu sagootinayay ku dhawaad 20 arday oo ka qalin jabisay waxbarashada heerka dugsiga sare una qalan qaadanaysa waxbarashada heerka jaamacadeed ee gudaha degmada Waaciye ee gobolka Karkaar. haddii aan xafadeenna ku soo socono waxaanu u sii gudbaynaa kelmadda gudoomiyaha ardayda dugsiga sare ee Sheekh Axmed Garaar ahna ardayda ka qalin jabinaysa hadda dugsiga sare Cabdiwali Axmed Xirsi. dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda sharafta leh waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. salaan kadib waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa farxadna noo ah sida qiimaha leh ee aad noogala soo qayb gasheen ee aad noogu soo bixiseen dhammaan kuraasta. waxaan idin leeyahay 100 jeer baad mahadsan tihiin. sida aad wada ogsoon tihiin xafladayadu ma aha waxaan anagu maanta jideynay balse waa wax aad hore ula soo socon jirteen oo ay sanad walba qabsan jireen ardayda ka qalin jabinaysa ee dugsiyada sare iyo galaaska standardka taasoo sanad walba ay qabsanayaan magaalooyinka waaweyn iyo meel kasto iskuul ku yaalada. waxaan noo muuqanaysaa in ay bulshada reer Waaciye yihiin dad waxbarashada aad u jecel una taageera indha buuxdana u hayo oo si fiican ugu soo jeeda. taana waxaan noo cadeynaysaa taageeraha iyo hiilka naloo muujiyay iyo sida buuxda ay naloo kala qayb qaatay xafladda iyadoo aan qof naga hagrada jirin hooyo iyo aabe iyo dhammaan dhalinyaro iyo qof kastoo xafladeeda ka qayb qaatay aad iyo aad baan ugu amaanaynaa waana ku mahadsan yihiin. waxaan halkan aad iyo aad aan rabaa inaan uga xuso dhammaan waalidiintayada qiimaha leh iyo qaayaha mudan kuwaasoo na soo gaarsiiyay darajada sare ee aanu maanta joogno iyagoo dadaal iyo wax kasta oo ay mutaysan karaan iyo dhib kasta u soo maray sidii aanu anagu qalinka iyaga iyo buuga iyaga u soo buuxsan lahayn maskaxdayadana wax ugu soo shuban lahayn iyagoo habeen iyo maalinba u soo jeeday dhib walbana u maray. waxaan idin leeyahay ilaahay xasanaadkiina iyo ajarkiina ha idinka siiyo abaalkiina ma gudi karo anagu. waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa oo raacinayaa waalidka iyaga labaad oo ah macallimiintayada har iyo habeenba noo heelan oo aan wax dadaala naga hagran bal inayba noo sii kordhiyaanin oo ay waxyaabo aysan awoodi karin isugu kaayadayaan inay noo sameeyaan. waxaan iyagana leeyahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin abaalkiinu maaha mid aanu soo koobi karro. waxa weeye insha Allah waxaan idinku rajaynaynaa inaanu wax badan abaalkiina isku dayno inaanu gudno ma doonayno inaanu idinka abaal dhacno. waxaanu ku rajo weynahay inaanu darajo fiican darajada aad soo gaarsideen iyo juhdiga aad nagu bixiseen inaanu si lamid ah ama laba jibaaran ba uga mira dhalino oo aanu anaguna darajo sare sharaftiina iyo sharaftayada iyo dhamaanteenba iyo degmadeenaba ilaalino. waxaanu ku rajo weynahay inaanu iskoor adag u dhigno secondary-ga degmada maadaama aanu nahay dafcaddii afraad oo ka qalin jabinaysa dugsiga. arday badan kama qalin jabin laakiin sanadba sanadka ka dambeeya waxbarashada degmadu aad bay u sii kordhaysaa qof walbana waa wax u muuqata balse waxaan anagu taa ka faa'iideysanaynaa. waxaan rabnaa inaanu sanad walba ardaydu korbi aqoontooda u sii qaadanin hadba marxalad ka sarreysa baa la sii gaaraa. waxaanu doonaynaa inaanu marxalad sare oo iskoor adaga aanu gaaro aan cayaar lagu soo gaari karin. sida aad wada ogtihiin iskuulka iyaga fasalka iyaga klaaska iyagu markii uu ka soo gudbayay standard 8ka waxa uu ku jiray kaalmaha ugu sarreeyay gobolka Karkaar. dadaalka iyo ardayda ay muujiyeen mid la mid ah inaanu muujino baan isku dayeynaa oo aanu ka laba jibaarno aanu secondary-ga degmadana sanadatan wacdara ka dhigno. meel kastiba waxa iska leedahay duruuf ay tabanayso iyo wax dhibaatooyin oo caqabado hortaagan. annaga caqabadahana hortaagan wax
waxa weeye ma aha gudaha iyo oo aad u sii buuran balse waxa weeye waxaan codsan lahayn in maamulka degmada iyo cid kasto bahalkii noo soo baalkeenka dhow wax inay nagu garab gasho doonaysa inay noo soo dhiciyaanin hiilka degmada ah oo inaanu iskoolkayaga secondary-ga imtixaanka aan halkan ku gallo in naloo soo dhiciyo oo aad taana loo ku dhiiriyona waan soo codsan lahayn yahay gudoomiyaha iskoolka sare ee Sheekh Axmed Garaar haddii aanu xalfadeeni u sii go'galno intaanan gelin kelmadda ka xigta waxaan ka codsanayaa shacabka dhammaan meesha fadhiya waxaan moodaa shacabka in si loola gaabinayo fadlan shacabka dhagoheedan xanuune haddii aan xalfadeeda ku sii socdo waxaan ku xigaa kelmad carabi ay inoo soo jeedin doonaan ardayda qalin jabinaysa arday ka mid ardayga haddii aan u yeero magaciisa oo saddexaan Ibraahim Cali Ismaaciil نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أحييكم بتحية أحلى من العسل وأطيب من المسك تحية مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا وأهلا بمن جاء إلينا العز تجلى والنور حلى علينا إخوتي أحبابي آبائي وأمهاتي لكم ألف تحية يزفها أبناؤكم لكم هدية فتقبل منا كما نعلم مراحل التعليم في بلادنا الصومال 4 مراحل وهي مرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية ثم المرحلة الجامعة فلله الحمد والمنة قد انتهينا هذه المراحل ما عدا المرحلة الجامعية ونضل من الآباء والأمهات والتجارات والوجهاء المسؤولين أن يساعدونا على إتمام هذه المرحلة الأخيرة سيهي سيدا ونوغسو جديد كلمة قيمها يقدرين المضانع عربية haddii aan wali ku sii gada jirno fasalka qalin jabinaya ee fasalka koonfur oo ka ah iskoolka sare galaaska afraad waxaan misna siinaynaa kelmad ingiliisha oo iyaguna inoo soo jeedin doonaan kelmadda ingiliishka waxay inoo akhriyaysaa gabadha magaceedu yahay Maryam Faisal Geedi. I am going to speak in the education. Today I want to measure on my suggestion here. My attitude towards education. Although I have no confidence in my little and the harm and knowledge to satisfy your curiosity, but I surely try to use my imagination. Education is the process which intended to important knowledge, develop skill and gain experience. The aim of education is to cultivate the assessment to be civilized one. Education is the passport to obtain a good job, recognition and the prestige. In this modern world, a person without education is considered an unfortunate victim of the first circumstances depression of the one greatest opportunity in the 21st century. waxaa inoo sii socon doona xafadeeni waxaan ku xijinaynaa misna maamulaha dugsiga sare ee Sheekh Axmed Garaar mudane Cabdullaahi Saciid Cali Cabdalla kala duwan guddoonka degmada guddoonka waxbarashada degmada guddiga waalidiinta maamulayaasha qaybahooda kala duwan oo jooga ardayda qalin jebinaysa ardayda kale oo fadhida meesha hooyooyinka dhalinyarada dhammaan marti sharafka saxaafadda inta ka soo qayb gashay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa sharaf noo ah maanta inaad nagala soo qayb gashaan tirada intaa leeg annagoo idinka mahad celinayna sida wanaagsan waa noo soo ajiibteen maalintan xuska mudan farxadda mudan xasuusta mudan oo ay qalin jabinayaan ardaydii dugsiga sare galaaskii ugu dambeeyey dufcaddoodii afaraad sanadka 2015-2016 Soomaalidu waxay tiraahdaa ma doonaysaa haruur haddaad doonayso haruur adigu beero haruur haddaad doonayso horumar dadkaagaa la miro gashtaa dadkaagaa la abuurtaa waxaan uga gol leeyahay waxbarashadu waa lafdhabarta keliya ay ku tiirsannahay haddii la doonayo horumar haddii la doonayo taabaqaad haddii la doonayo in la gaaro meelo kale oo ina ka fogfog wax yar haddaan gadaal u midhicsado dugsiga sare ee Sheekh Axmed Garaar waxaa loo wareegay sanadkii 2011 oo loo aqoonsaday waaciya yeelatay dugsi sare
waxaana ka qalin jabiyey dufcada tani ku tahay maanta aynu sagootinayno dufcaddii afraad waa heerar kala duwanaayeen sanadba tirada iyo tayadu waa siyaadaysay sannaddii ugu dambaysay waxaa noo hirgalay in ardayda dugsiga sare 10% ay keeneen darajada ee loo yaqaan ee heerka Puntland waxaan rajaynaynaa ardayda maanta ay fadhiya waa ujeedaa maanta aad baa u fiicantiin waxay ka sii fiicnaanaysaa goorta natiijo fiican ii keentaan hadda waxba na tari maysaan waxaan rajaynayaa dadka inaad ka badisaan mooye inaydan ka hooseyn inaan laydinku hungoobin waan rajaynayaa saasaana inoo ballana dugsigu sidaan wada ogsoonnahay bulshada wuxuu ka daboolay baahi taagnayd oo loo ordi jiray meelo fogfog magaalooyin dhibaatooyin badanna inoo keensan jiray baahidaa waa daboolay isagoo weliba keenay gaaray tayadii loogu talagalay oo la tartamaya dugsiyada Puntland waxaan ku soo gabagabeynayaa mar raba hadalka inaan ku dheeraado ardayda hadday qalin jabinayso hadda macallimiintana waa qalin jabinaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa anigoo u mahad celinaya dhammaan marti sharafta gaar ahaan intii taabagelisay suurtagal ka dhigtay inay xafladda tani qabsoonto maamulka degmada aad baan ugu mahad celinaynaa sidii wanaagsanayd ee u taageereen noona taageereen waxaan kaloo aad u ammaanayaa shirkadda geyigeena ee golis wax badan noo sahasha noo suuragelisa waxyaabo badan waxaan kaloo aad u ammaanayaa intaba waxaa isku fuuqsaday waalidiinta aadka u ballaaran oo noo ah lafdhabar noo ah dhabarkaanu ku taagannahay dowladi ma jidho cidna taageedha ma jidho aan waalidka ahayn aad baa u mahadsantihiin laakiin faanwalefarianu kusii soconno xafladdeena waxaanu ku xijinaynaa kelmadda macallimiinta waxaana inoo soo jeedin doonaa macallinka macallimiinta maxamed cabdi ibraahim inta ardayda ama sagootinta ardayda foonfoorka waxaan leeyahay bulshadaas aan salaamayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan ku hadlayaa ama afka macallimiinta waxaan leeyahay ardayda foonfoorka kalsooni weyn oon ka qabo iyo iyaga laftooda oon aqaano iyo dadaalkii iyo sida ay u soo socdeen oo wax badan ka fahamsanahay keliya annaga noo tarmaysa waa halkii macallinku wax ka sheegayay inaad halkan xafladda aynu ku soo gebagabayno tahniyadda iyo abaalmarinta micnihii aanu idinku weyneynayno inaad halkan ka baxdaan waxa qiimo weyn noo ah ama sharaf weyn noo noqonaysa inaad waxaad xaq u leedihiin Puntland ka dhici doona oo noqonaya micnihii marka micnihii la eego hadhowtoole deeqaha waxbarasho ee Puntland laga qaadanayo inaad ugu yaraan 3 qof 2 qof iyo dhammaantiinba ka qayb qaadataan تقييمها وين ما أنا بقى مقدرين واتس sababtu waxay tahay idinku waxaad tihiin arday xaq u leh inaad noqotaan ardayda Puntland ugu sarreysa because waxaan kaloo u mahad celinaynaa maamulka iyo macallimiinta dugsiga oo ardayda aynu maanta arkeenno heerka aynu u jeedno soo gaarsiiyey iyagana mahad celin baan u dareennaa sacabna ugu dareennaa intaa ka bacdi haddii aan xafladda guda galno dufcaddan ama galaasakan waa fasalkii afraad ee ka qalin jebiya dugsiga Axmed Garaar waa wax ilaahay loogu mahadnaqo maalinba meel baynu soo marnay maalinba heer baynu joognay waa dufcaddii ugu badnayd ee sanadka ka qalin jebisa dugsiga waxaanu oran karnaa waxbarashada dugsigu sanadba sanadka ka dambeeya heerkeedu kor buu u socdaa hadday noqoto tayo iyo hadday noqoto tirada ardayda waxaana lagu qiyaasaa tayada iskuulku inay kordhayso waa tirada ardayda korodha haddii tirada ardaydu hoos u dhacdana tayada waxbarashada liidataa haddii tirada ardaydu sanadba sanad ka dambeeya kor u socotana tayada waxbarashadu waa fiican tahay waa ka mahad celinaynaa cid walba oo arrintaas
qayb ku leh hadday noqoto waalidiin hadday noqoto macallimiin hadday noqoto maamul iyo hadday noqoto dawladda waxbarashada degmada qaasim ismaaciil axmed waxaynu ku fogi doonaa guddoomiyaha waalidiinta guddoomiyaha guddiga waalidiinta cabdiraxmaan yaasiin siciid. salaanka bacdi waxaan runtii bogaadinaynaa marka u horeysa ardayda takharujeysa iyo wakhtiga dheer ay soo socdeen hadda artaa ka takharujaya waalidiintooda macallimiintoodii maamulkoodii dhammaan intii soo garab taagnayd 12 sano ee ay ku soo jireen waxbarashada ay damacsan yihiin inkastoo wax yar ka dhiman tahay oo hal kursi u harsan yahay oo imtixaankii muwaxadka ama centraliska u harsan yahay aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waxaanu leenahay alf mabruuk calaykum. bogaadin kadib waxaan jeclahay in aan ardaydaas talooyin ama tawsiyaad kooban aan siino. runtii wixii dardaaran ahaa maamulayaal iyo guddoomiye iyo dadkii kale oo martidii meesha dadkii ka hadlay ayaa wax badan bixiyey. ardayda sanadkan dufcadii afraad ah ama sanadka ugu afraad hadda gelaysa runtii waxaan ka rajaynaynaa sidii dadkii uga horreeyayba sheegeen in ay meeshii qoladii hore waagii horeyna keentay inayna ka sara maraanin. waana arday aan aada ugu kalsoonnahay ognahay akhlaaqiyaadkooda iyo dhaqankooda inuu aada u hagaagsan yahay. waxaan idinka filaynaa marka sidii la sheegay in aad waktiga inta ka hartay dhowrkaa bilood inta dadaashaan waayo dadaal la-aan waxba laguma helo. haddan taa intaa kaga baxo waxaan runtii aan ku soo gabagabayn lahaa waxbarashada degmada waaciya iyo alikhwa maadaama aan ku hadlayo afka guddiga waxbarashada degmada waalidiinta waxa weeye maalinba meel baynu maraynay maalinba meel bay waxbarashada soo maraysay. maanta waxaan u malaynayaa sanada kan hadda meesha la marayo waa meel la isla qirsan yahay inaynu showd way soo goynay. waxaa jirtay maalin aan iskoolka iska bixin karin oo lacagta meelaha looga soo ururinayay. waxaa jirtay maalin aanan dugsi sare haysan marba meel baan soo gaarnay. maanta meel fiican baan joognaa. sanadkii hore runtii waxaan aada ugu najaxnay oo aan joognay in ardayda iskoolku uu maaragtay lacag loo raadinayo iskoolka uu isagu qaan gaaro oo isagu isbixiyo. aad iyo aad guul weyn oo la gaaray oo reer waaciyo waxbarashaduna gaartay bay ahayd. sanada kan waxaa cinwaan noo ah in aynu dayactirno dhismayaal fiican hadda waynu haysanaa dhismayaashii laakiin xoogaa dayactir la-aan baa ku dhacday. waxaa la rabaa aan bulshada waalidiinta iyo mas-uuliyiinta meesha joogta aan rabaa inaan uga faa'iidaysto dayactarka dhismayaasha waxbarashada degmada waaciye innagaa layna ka rabaa. waana hadafka dugsiga sare derbigiisa waa ogtihiin dayac baa ka muuqday. sanadka xoogaa baan isku daynay inaan maaragtay aan dayactir yar ku samayno. kan haddaynu joogno ruuxiisa u baahan marka sanadka insha allahu waxaa la rabaa 3 bilood oo fasaxa aan geli doono oo sayfiga ah in aan qadiyadda ka wada qayb qaadano oo dayactirkaas aan annaguna insha allah anagoo la kaashanayna qaybaha waxbarashada maamulayaasha iyo qaybaha kale idinkana waynu ku xisaabtami doonaa. taas baana noo hadafo waan isku imanaynaa haddii layna ka dhigo. xalfadeenu kusoo soconno waxaynu ku fogi doontaa six yar oo buraanbur ah oo inoo furi doonto hooyo ka mid ah hooyooyinka hooyo shamis yuusuf cali. nasaxaan oo samanta badan salaad iyo galab waxay suudiga u maraan inaydan kala siiban oo saaxiya tihiin inaad jaamacada sare suuriya u kacdaan inaad sandalooyin qabataan sidii la hubo ammaan iyo sacabayeysa ku mudan yihiin. waxbarashadu qaali weeye warkayga qora qanab qafilan weeye ilmaahan wax qoriyo qoon duruustaad qaadateen oo qarka uma dheen oo xisadaad kala qoraysan qabuulka wacan oo qaaradaa ugu gudbaysan qorsha la hubo haddaydan qaadka cunin oo qabkiina dhigin. gabdha iyo wiilasho waa go-aanna hadal guddiga iyo guurtadiyo gayshka wada fadhiya galabta waxay daawanayaan waxaad guddeen
inaad guulaysateen aydan gaabis noqon annana waa guushaye gaaro horumar wacan arday kaloo saaqida oo xariifa wuxuu ku jirayaa nin loo yaqaan nid oo ku magacdeen oo ku magacdeen xugub arday kale oo saaqid ah wuxuu ku jirayaa maxamed hiirad oo la baxay xayxayti arday kale waa waalid xasan axmed xasan oo ku jiraya waalidka dhalay xayxayti oo ah arday xeeraan saaqida riwaayadda inoo bilaabanta صح والله اسكت جوي حاول انه اسجد وسقي لا يحاول اني لما دما غاري دنيو ساكن هابت اسكول بنو جفتنيو يودي بس دابا حبا غرمنيو لو تنميد غونو ونفت انا قلت حلوه قيله كوري واغرتي لا يحاول اسجد ما غرت اي ساكن هابت سو جفت ما غرت واغرتي اسكول كان ka عاجز كوري اسكول كان ka عاجز احسن سامر كان وشينا كوري اي اسكول wax niyado ma hayo اي marka wax loo baahan qaad uga bixinay Soomaa qaad kana ku haysa waagirtay waxay sameeyeen horta iska bax ma aha marka waxay sameeyeen macalinka maamulaha bila dagaalameyna soo bareek عننا ardayda la dagaalameyna kabacdi la baacinaya wadac loo baxal baasama kabacdi la baacinaya bas kateena sabtiis oo tigina soo waagid hay sabtiis la balan insha Allah hay sabta hay haad raqam ma sha Allah hasa hay يعني برافو اسكت حي صح اسكت وانا لو شوف عليك انت سداد انا كاين الفرا سداد صح كاين الفرا اي كاين واحد على الله انا بعد شو بوقت الشيخ هاي صح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام معك صلوا الجغرافيا يا قائم اي جو ورحمة محمد بن حليكم ورياح قدام لا تكتبني قدام لا تكتب حتى في ساعة دورية ماذا انت اللي فنشدني ساعة هيك 8 دقيقة ما سكول كان ساعة 8 دقيقة لك هذه كنا ساعة فرتني 6 دقائق صعدتها ورياح جوجية وحا مردا ما دا واحد يقول لك ثاني انا ديكو اركو جبت من سكول كونسلتيتو صعبوا تريتو أرضي عشان ما لغوري. وريا رجع معنا معنا. الباقي ما صقر على محل مش ما حفظه معنا. يا. وريا حافظه مرة وحوي هذا 10 قرى حوي 15. يا. أشكون حوي ما أنت 10. ساي. لا تعمل صح. ساي. حقيقة. ساي. أنا جيت. ساي. حقيقة. صبح. ما شو حافظ معنا صح. ساي. استاي من حاجه سوري هوري انا يا حبيبي علي ماشي ما جوتي ماشي واحد من مريم هذا هيك حي لا اله الا الله محمد هيك حي ربنا معروف هنا ماشي عندك وش صوت هيك واحد ما ماشي عندك النيو ماشي عطت ما يرضيك هيك حيك حرض ما حنيك هيك حرض ما هيك حنيك هيك صار ما هيك ما ارضها وناكسن بيوصل هيك صار اسمع الحسد ما هو وقت حلوتي وقت اللي جيبه حلوتي معلم كانوا معنا يا غو معنا ما تاينا احنا شيء هدر معلك واحد ويا بايتانك انه مسلحي هدر معلك راسك بلا واحد قشان بلا جنتات هدنا معلك مركز لو قراضي من لا هدنا ولا اسمع اسبوع بايدين دو اسكول كي من انسان لبدي انه والد يدكون دين يقوم سو نقول كان معنا اسكول بصاص كسو بدلاني رجال اسكول واعيين واخ كدغتو ما شاء الله سو وينا waxa way hadda waxa way wixii dhaafina dib saac hada caskan qoranayna waa soo bax سامع ساعة
الله صحيح في أنا هذا كور قرر معنا عارف أنا نقول عليه من داعي سكولكي معلومات تدلي والله كان لقطة في أودينا بورتا عاون بيش قالنا مش اللغة الكسمرة ما راح ندور في دينا واقفتي أنا حافظ لك سبعين مكانتي. هاي. رحت لاعب واحد مكانتي. واقفتي بحاول أساسا. هاي. عاود توبة بحسب مكانتي. واقفتي. توبة ترى عاود رعب مكانتي. ولا تهريب ساعة. هو تهريب قام بس. واقفتي. ست العجلة ما يشتكوبري. واقفتي العجلة ما يشتو. مكانتي. هاي. أول ما أنا بلاش أنت خلصاني مكانتي. واقفتي. واقفتي. ساسا تهريب مكانتي. واقفتي. أفكر ناس فهمان. هاي ساعة بدانا قام بغاتي. لأنه قام بغاتي ما واحد بالتهريبية. وينو ويلا بهي حول اسكرهم نقدر بس كبرسنيا ولا تجي يا صاحبي والله زعلان وش كبرسنيا قد كنا ماشي سي بلد تقاتو ما تحول النعبة هستي هاي صح وعليكم السلام حسن واكو قرانيا واقر واقر lagu warin horta ninka xayxayta nifi can buu ahaan jiray ninkii wiilkii aan adeerka waayada ilma adeerka ahaayeen loogama dambeyn waxa weeye ninku waa fiicnaan jiray ninkaasaa garanaysaa waa kaa ninku waxa weeye adigu naftarkaagu waxa weeye sanadkaba halkan maalin baa noo jirta waa khayr waa ducaysan tahay waxa weeye horta ninkii waa kan ninkii waa kan waxa weeye dambigiisii baa lagu tusiya waalidkii baa dacwadiisii loo soo gaadhay waa kaa horta qaybkiisa oo soo wareegsan waa kan wiilkii hore aan ku dhaqaaqay laakiin ana ku wantoobaya waa kan marka waa soo balantay maxaa ku soo balantay inuu soo ku noqon wixii hore oo ana ku jira maadaa yiri mise isaga afkiisa ka yiri waan cadeynayaa hay maqashi ma mulay macalin baa raali galaya macalin soo dhawow macalin waa raali galaya dadka yasir oo dagaal raali galaya iyo wax kasta waa dhacaan maxay ku dhacaan lama dhaho laakiin yaa dhicin baa lahaa maxaa adiga معنا هرت ويلكي واقعنا عند الحين حتى عرض كيجوي. هي. معنا هرت والرجال جني أمر كوره. هي. رجال جني بالله بحنيه. نعم. ويا معنا كو ماذا حي مجاهد بكور. رجال جني يا معنا. واخد لكن وحوي واحد سوى توب وحوي نفع عم بطاي. هي. وحوي معنا كتاو في العارف. هي ما. وحوي جوجي بشرط. وإنه دابور كيستاجا أرضي دورت هذا وكر رالي قليته وكور بحيا. صعب. أرضي. وكسر نقول وحنا وحي وقتي من أرض في عنا وحوي وحي قويدينيا ويلكن ما أنت واقف ويلك لا يركو وابني ويلك لا يركو كان تقريبا كينيا إن شاء الله حبك لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة لا إله إلا الله معلمين ضمان مركز شرف طالب وسموتهم صحافة وعن سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام ووقت حفلته في مكبتها كنت آد بارين وكوهم بليري عاداتي أرددا ورفورك أفضل الجبريسة سنة كلا بدل كل نغي وكبيتك وحن ليا همبليو كنت واحد فضل الجبسين وحبرشد الكوات وحن ليا القصة كتب وحبرشد اللبات بين الكتب الجليلة هل كان كسر haddii aanu nahayna bahda shirkadda bolis annaga bahda waxbarashada waxaan nahay mataano mana kala maarano waxaan jecelahay ilaafo maalintii lasoo bilaabay dugsiga axmed garaar oo ah sanadkii afraad inaanu ka qayb qaadana baan u malaynayaa waana tahay sanadkii afraad aan ka qayb qaadano weeye runtiina halkaa kagama hari doono ardayda soo socotana waxaan ugu bishaaraynayaa inaanan halkaa ku jooji doonin qayb qaadashada iyo runtii dhiirigelinta ardayda mar kasta waynula joognaa waxaanan taaganahay dhinaciina waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum farxad weyn ayay noo tahay galabta si aan ka soo qayb galno xafladda dhiirigelinta sugan inay dhalinyaradaas waxbarashadoodii dhamaystiranaysa isla markaasna waalidiin joogtoodii suudiga soo gelisay muddada 12 sano ah oo waxbaraysay iyo macallimiintii iyaguna 24 saac
diyaarinaayo casharada jecel maanta inay kusoo baxaan isula guulaystaan inay imtixaankaas insha allah dhamaystirkiisa gudihiisa qaadaan annaga ka degmaahaan noo tahay farxad weyn bay noo tahay insha allah codsigii ay naga codsadeenna insha allah waxaan talagaraynaynaa inaan inay ku galaan imtixaanka magaalada waacay gudaheeda insha allah taasna iyadana la wada talagaraynaynaa sida labaad qofku waxa uu u bartaa marka hore waa naftiisa weeye marka xigana waxa weeye waalidiintiisa waa dalkiisa waa diintiisa insha allah waxaan idin rajaynaynaa kuwii dalkooda iyo diintooda iyo diin dadkooda anfaca inaa noqotaan oo kuna guulaystaan juhdigaas iyo muddada 12 sano ah ayaa ku guulaysteen 2 fursad ayaa idin furan inaad jaamacad heer jaamacadeed iyo waxbarashadeena sii wadataan iyo inaad shaqo raadsataan qofku mar hadduu secondary school ka baxo waa fursadda keliya uu shaqada ugu raadsan karo annagu waagii aan secondaryga ka baxnay dhowr iyo 80aadkii bay ahayd qaybina jaamacadihii bay galeen qaybi shaqooyinkay galeen qaybi ciidamaday galeen ma garatay waxaan noqonay laamaha kala duwan oo dowladda iyo hayadaha dowladda baan ku kala diiray idinkana insha allah waxaan idin rajaynayaa sidaas oo kale برتعان 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 برتعان